الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن شاء الله تعالى ما تورى ليال وحينو قدقلنا شيء آدي عظيم ومدى مجتمع ما أنت لقربه إنه كسف سنادان ولبا شيء قاسو بركوين يخيرات يفضائل فربضان ليه اليوم محايا لي تدكو وشعليهين وحا شيء فضلك بدن ama shayga wanaagsan ee wax laga helayo maadaama ay jecel yihiin waxa fiican abwaab farbadan oo diinta kamid ah oo ay ka helayaan fadaa'il iyo arsaaqad iyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo u naxariista inay milicsadaan oo ay eegaan xagga sababtoo ah diinta Ilaahay subhanahu wa ta'ala khayru dunya wal aakhirah ayuu ku sheegay adduunka khayrkiisa iyo aakhirada khayrkeeda oo dhan ayaa diinta Ilaahay subhanahu wa ta'ala inugu kala balaariyay makaarimul akhlaaq mawduuceenu maanta waxa weeye shayga qiimaha badan ee weyn ee la yiraahdo makaarimul akhlaaq waxa weeye wasifooyin ay ku sifaysan yihiin dadka anbiya wa rusul wa sidiqiin wa saalihiin dadka saalihiinta iyo kuwa anbiyada iyo kuwa rususha iyo kuwa awliyada Ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo dadka culimada dadka qiimaha sarsara leh dadkaas waa sifo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku sifeeyay oo sifadaas hadii ay ku sifeysnaadaan fursad iyo nasiib waxay u yeelanayaan inay Ilaahay subhanahu wa ta'ala gaaraan laakiin qofku hadii uu makaarimul akhlaaq waayo Ilaahay subhanahu wa ta'ala manaasisha iyo boosaska sarsare ee soo haray hadeer sida مكان العلماء والصالحين والصديقين والشهداء هذه الأمكنة بوسسكن أردن قفكو ما جاري كراو إلا ومكارم الأخلاق إسكو هجاجيو ما هاني إلهي سبحانه وتعالى شيء نوحو أكيني إلا نولاضو مكارم الأخلاق إلا نولاضو أيو أكيني صوبتها مكارم الأخلاق هدي أي مقران لهايد ومدى مجتمعها نلاشودو ويناقص لهايد هدوتنا الدنيا دير إن يربالغو نولان لهايد sababtoo ah makaarimul akhlaaq waxa kamid ah in makarnasa wax la bixiyo wax la sadaqaysto hadii aan waxba la sadaqaysan oo dadkii sadaqada aan la amrin ama Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu sameeyay oo ku abuurin dad farabadan qalbiyadooda ama laabtooda inay wax sadaqaystaan inay jeclaadaan sadaqada dadkaasu adduunyada kuma noolaan lahayn oo dad farabadan oo masaakiin ayaa laga tagi lahaa ومقرنا ساورير أي الدنيا كدع لها تنال الدرجات درجوين كوحلو جرا مكارم الأخلاق وحنا مقام كقف كستوى مقام كيسا وحا كرلو قالا مكارم الأخلاق هدي أمان تبوس تاجن تاي ولا كيسا سنة كتنبي أما لو صنو كحية وتنبي ومكارم الأخلاق أي سكدستيد وتسهجاجستيد ومكارم الأخلاق أتكرستيد إلهي سبحانه وتعالى بوس كي سنة كهوري أتاجنيد وكاقاضيا بوس كسرية أيوكو قارسينيا مركانا نبي صلى الله عليه وسلم محلو جري وإنك لعلى خلق عظيم نبي الله أذوقو حاكسو كنتهاي أخلاق ويني همرقون معناها آيادا علماء قار وحيكو قر اللهايين كتابو هدي أي مقرنسات يسكتيان إني كتابو قرآن وإنك لعلى خلق عظيم معناها نبي الله أدقوا أخلاق وين أيا قصو كنتهاي وحبها مرقون هدي أي دتكو كدبان أي قالدو كدبان أي منافقين تو كدبان أي كحاسدان أدقوا وحاكو سفيسنتهاي صفة الصبر مكارم الأخلاق وحاكو سفيسنتهاي نبي الله مكارم الأخلاق أيا كو سفيسنتهاي همرقون أو واسمر صاي هدي waxa lagu weydiisto oo sadaqo iyo waxyaalo kale lagu weydiisto nabi Allah adigu makaarimul akhlaaq ayaa ku sifaysan tahay hamurguun oo waxa ku sifaysan tahay ina wax bixisay ada ina wax bixiso oo sadaqada bixiso oo dadka masaakiinta una xariisato ayaa ku sifaysan tahay hamurguun hadii nabi Allah qofkii ku dulmiyay oo afis ka dalbo oo dambi dhaaf ka dalbo oo inaad saamaxdo ka dalbo adigu waad saamaxaysaa oo afwi ba ku sifaysan tahay oo samir ayaa ku sifaysan tahay afwi ayaa ku sifaysan tahay
hamurugoon ayuu ilaahay subxaanahu watacaala leeyahay. haddii lagula dagaalamo nebi allow sallallahu calayhi wasalam, adiga haddii lagula dagaalamo waxaa ku sifaysan tahay sifatu shujaaca nebi allow oo hamurugoon sifatu shujaaca ayaa ku sifaysan tahay oo waxba macnaha iska celinaysa oo geesi baa tahay. marka waa sidaa kuwad min makaarim al-akhlaaq jamiicaha wa qaliilaha. sidaa kuwad oo nabiga sallallahu calayhi wasallam waxaa lagu leeyahay anta kariimun fi akhlaaqik fi jamiici xayaatik, adigu waxaa tahay qof kariim ah oo akhlaaq wanaagsan ayaa lagu leeyahay ayuu nabiga sallallahu calayhi wasallam. sababtaa qofku marka uu tusaalahaan ummad mujtamaca aado oo waxyaalo fara badan uu dhex galo oo magaranaysaa waxyaalo fara badan uu galo, qofkaas waxaa laga yaabaa inuu ku fikiro waxyaalo fara badan, inuu mustaqbalka ku fikiro, inuu wax muruga ku fikiro, in magaranaysaa qof bay isqabteen, haddii qofkaas magaranaysaa siduu ku yeeli lahaa iyo xaaladiisa inuu ku fikiro. nabiga sallallahu calayhi wasallam dee xaalad xun buu ku noolaa markaas, maadaama uu ku noolaa nabiga sallallahu calayhi wasallam xaalad xun ayaa waxaa lagu leeyahay xaalada xun aa ku nooshahay yay qalbigaaga gelin afkaar xunxun iyo fikir xun, macnaha in wax ku dhacaan, inay wax ku asiibaan, in mustaqbalkaaga kaa xumaado, inay noloshaadu kaa xumaato, fikradaada ha gelinay, maxaa yeelay adigu waxaad ku sugan tahay akhlaaq wanaagsan. markana waa sidaas nabiga sallallahu calayhi wasallam wa xusnul khuluqi, akhlaaqda wanaagsan yuujibu taxabub fima bayna annaas, waxay waajibaysaa ama waxay keentaa jacayl, inay dadku isjeclaadaan, inay dadku isku naxariistaan, inay dadku isku soo dhawaadaan ayay keentaa. weligaa magaranaysaa makaarimul akhlaaq haddii lagu dhaho makaarimul akhlaaq waxaa lagama faa'iidayo waxyaalahaas ha aqbalin, sababtoo ah waxaa waajib ah qofku hadduu akhlaaq ku sifaysnaado in ay waxyaalo waaweyn ay u keenayso oo ay ka mid tahay taxaabub fi nnaas. waxaa kaloo ka mid ah sidaas diidkeeda akhlaaqda xunxunna waxay keentaa in la isnecbaado, in la iska dhex arko, in magaranaysaa la iswaxeeyo oo lays magaranaysaa xaasido, in la isku daba jeediyo oo dadku ay isku daba jeediyaan. si kastoo ay thamaradu ama camalku uu u wanaagsan yahay, thamaraduna way wanaagsan tahay. maanta ninkii timir beerta, geed beerta timira, dee midhaha uu ku helayo waa midho wanaagsan oo wuxuu ka heli doonaa insha allahu tacaala dee midho timira oo wanaagsan. waa sidaas dhirta nafciga leh qofka hadduu beerto dee midhaheeda wanaagsan ayuu ka helayaa. saasoo kale qofkii camal wanaagsan iyo akhlaaq beerta oo akhlaaq magaranaysa dadka dhexdeeda ku beerta oo dadka akhlaaq wanaagsan kula dhaqma, isna wuxuu ka helayaa thamaro ayuu ka helayaa. maalin ayay intay isku aruurto ayuu thamarada qaadanayaa oo ayaa qofkaasu waa qof akhlaaq wanaagsan. sida geedka markuu baxo timirtu markay badato isku aruursto oo qofku uu magaranaysaa maalinta jawaano timira uu ka buuxsado, sidaas oo kale ayuu qofku hadduu akhlaaqdiisa wanaajiyo hadhow dhowr sano kadib wuxuu keenayaa in ummadii ay ku aqoonsadaan ama inuu ku caanbaxo kariim ama qof akhlaaq wanaagsan. nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu yiri akthar ma yudkhilu an-nasa aljanna taqwa allahi wa xusnul khuluq, waxa ugu badan ee dadka jannada geliya waxa weeye waa cabsida ilaahay iyo akhlaaqda wanaagsan. waxa weeye haddii aad doonaysid inaad jannada gashid oo aad doonaysid inaad ka qayb qaadatid maalinta yawmal qiyaamah, dadka liibaana ee aflaxay liibaan dhamaystiran dadkaasoo ahlu janno noqday, waa inaad akhlaaqda wanaagsisaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsataa. laa tafcal shay-an aakhar. dad baa waxaa laga yaabaa camalo waaweyn inay isku qaadaan, in dad fara badan baa inay mawaaqif fara badan inay dhaafto, laakiinse kuma fikirayo qofku fii yawmihi alladii yaciishu fiihi, maalinta uu nool yahay ayaa wuxuu kasban kartaa camal weyn oo akhlaaq wanaagsan uu jannada ku galo maalinta aad nooshahay. bis macnaha waxaa laga yaabaa aroortii waagu markuu baryo inaad sugaysid salaadii duhur, intaas oo dhan aad sugaysid oo aad isleedahay salaada duhur ma garanaysaa waa fadli weyn bay leedahay jannada ku galaysahay, iska sug. waxaa laga yaabaa laakiin inta ka horeysa oo dhan waxaa sameyn kartaa camalo wanaagsan oo akhlaaq wanaagsan oo aad ku gelisid
إن شاء الله تعالى جنة